Su'aalaha inta badan dadku ay isweydiiyeen balse noloshoodii wax ka bedeli kara waxaa ka mid ah: muxuu askariga qof uu u dilaa ama magaalo oo dhan oo dad macsuumiin ah ay ku nool yihiin u bambeeyaa? Dabcan, burburka adduunka ka jira iyo qalalaasooyinka dagaalada, kumanaan qofood ayaa ku dhimata. Dadkani oo dhanna ma aha kuwo dambiilayaal ah. Sida dabiiciga ah, dadka badankoodii ma ay ogola in qori ay qaataan oo qof nool ay dilaan. Dil oo dhan dadku waa wax si aad ah u neceb yihiin. Iyada oo sidaa ay tahay, haddana kumanaan qofood ayaa dagaalo darteedii adduunka ugu dhinta. Xitaa taariikhda adduunka, haddii aad akhriso taariikhda ugu xanuunka badan ee bani'aadamka, waa isku dayadii ciribtirka. Tusaale, Hitler oo kale, Yahuud nacayb daraaddeedii inuu ciribtiro Yahuudda oo dhan ayuu amar ku bixiyay. Tusaalaha dadka sida Hitler oo kale u fikiri jirayna taariikhda waa kuwo aad u badan. Haddaba, qof inuu waasho oo go'aano halis ah uu ku dhawaaqo waa wax la aqbali karo. Laakiin boqolaal askar ah oo hubeysan, dhammaantoodii ma dad waalan miya marka amarkani xumaanta ku qotoma oo ciribtirka dadka ay fulinayaan? Canug aad u yar oo waxba aanan galabsan ayaa qof askari oo canuga aabbo u noqon kara ayaa xabad ku dhifanaya. Waxyaabahani maxaa askarta ku kallifaya? Sidee ayay maskaxdoodii u doorsoontaa? Su'aashan iyo su'aalaha la midka, aqoon-yahanadu waxa ay isku dayeen in baaritaan ay ku sameeyaan. Waayo akhlaaqda bani'aadamka iyo rumaysadkaba waa wax ka hor imaanaya oo aanan la fahmi karin in qof uu dilo qof aanan waxba ka samayn. Mowduucani cajiibka ahna waxaa laga sameeyay tijaabada caanka ah ee Stanley Milgram. Stanley waa nin Maraykan oo psychologist ah. Tijaabada uu sameeyay ayuuna caan ku noqday. Buugaag badan ayuuna ninkani u leeyahay. Buuggiisii ugu saameynta badnaana waa buugguu ugu magac daray Adeecidda Maamulka Indhaha Cilmi Baarista. Su'aalaha aan muuqaalkani isku soo weydiinay ayuu buuggani kaga jawaabay. Stanley, sida inaga oo kale, isaguna waxa uu aqbali kari waayay oo uu ku dhibtooday inuu fahmo sidii lagu sameeyay ficilo aad u xun oo dareenka bani'aadamnimada iyo rumaysadkaba ka hor imaanaya. Tijaabadiisuna waxaa la sheegaa in ay aas-aas u ahayd inuu fahmo Hitler iyo askartiisa wixii ku kallifay in Yahuud ay ciribtiraan, yacni dareenka nafsiga in qowmiyad oo dhan ay baabi'iyaan, iyada oo dad macsuumiin ah, kuwo waayeela, ciyaal yaryar ah iyo dumarba ay ku jiraan. Stanley tijaabadiisii Milgram si uu su'aashani jawaab ugu helo, koox walba oo dadka ka mid ah, qof wax bartay iyo mid aanan waxba baran, mid heer sare waxbarashada ka gaaray iyo mid dhax uga tagay, yacni kategori walba oo bulshada ka mid ah ayuu tijaabadani ka soo qayb geliyay. Dadka tijaabadani ciyaarayna waxaa ka mid ah macallin, arday, cilmi baare iyo inta kale. Dadka soo harayna tijaabadani in ay daawadaan ayay shaqadoodii ahayd. Waxaana tijaabadani loo sameeyay in la ogaado sababta dadka qaarkii ku kallifi karta xaaladaha qaarkood in dareenkoodii iyo rumaysadkoodii ay ka tagaan, iyaga oo sameynaya ficilo halis ku ah qoom kale. Tijaabadani oo dhanna 2 qof mooye inta kale waxba ma aysan ogeyn. Qofka cilmi baaraha ahaa iyo ardayga waxa ay ahaayeen 2 qof si dhow iskula socday, balse macallinka iyo dadka kale waxa ay ahaayeen dadka sida dhabta ah la rabay in dareenkoodii wax laga ogaado. Sida tijaabada ay ku socotayna waa qaabkani: cilmi baaraha waa qofka ugu sareeya galaaska, macallinkuna waa inuu ka amar qaataa cilmi baaraha, ardayguna waa inuu macallinka oo keliya u dhageystaa. Qof walibana waajibkiisii inuu gudan doono isaga oo aanan ka labalabeynin ayuu ku dhaartay. Ardayga la rabay in tijaabadani laga soo qaybgeliyana waxa uu bilowgii ku dhex jiray dadka shacabka ah. Maadaama cilmi baaraha iyo ardayga is ogaayeen qorituur la fahamsan yahay natiijada ka soo bixi doonta, ayaa macallinka dadkani tuur lagu dhahay. Kadibna ardaygii loogu talagalay tijaabada ayaa dadka dhexdii ka soo dhaxbaxay, iyada oo macallinka iyo dadka kaleba ay moodaan in ardayga qorituur ku soo baxay. Kadibna cilmi baaraha waxa uu macallinka ku dhahay, waxaan kuu dhiibayaa erayo, waxaanse doonayaa in ardayga aad barto. Kadibna wixii aad bartay waa inaad ardayga dib u weydiisaa haddii uu sixi karo ama haddii kale.
haddii ardayga wixii aad sheegta uu sheego waa qof nabad galay, balse wixii aad ardayga weydiiso haddii uu qaldo waa inaad kursiga korontada ku ciqaabtaa. Kursi koronto ah ayaa qol gaar ah lagu xiray, kadibna sida xabsiga oo kale daaqad yar ayuu macalinka fadhiistay, halkaasi ayuuna ardayga su'aalo uu ku weydiinayay. Ugu horeyn waa inaan ogaanaa kursiga iyo korontada ku xiranba waa kuwa been ah, balse la moodo in koronto ay ka kacday. Ardayga iyo cilmi baaraha galaaskana sida bilowgii aan kuu soo sheegayba waa dad si dhow iskula socday. Macalinka marka uu damco in ardayga koronto uu ku shigo, ardayguse howl wax uu ciyaaray sida koronto inay ku dhegtay oo kale. Macalinkuse waxaa lagu dhahay haddii ardayga uu qaldo wixii aad u sheegtay bilowgii waa in korontada ama ciqaabta khafiif aad uga dhigtaa. Hadba ardayga inta uu qaladkiisu uu la eg yahay waa inaad ciqaabta korontadana sare ugu sii qaadaa. Sida la wada og yahayna 15 voltage oo kale korontadu waa mid daciif ah oo bani aadamka halis kuma aha, balse haddii korontada ilaa 370 ilaa 400 iyo wixii ka sarsaray ay gaarto waa xaalad aad u daran oo qofku u dhiman karo. Ardaygii su'aal walba uu macalinka uu weydiiyey qalad ayuu ku jawaabaa. Macalinkuse isaga oo waajibkiisii gudanaya, daaqada gadaasheedii ayuu ardayga korontada shoogeedii uu ku kordhinayay. Ardayguse cabaadka iyo qaylada dadka galaaska ku jiro oo dhan daaqada ayay ka daawanayeen, isaga oo ardayga waxba aanan lagu samayn, keliya qaylada iyo inuu xanuunsanayo oo kale ardayga jiliin oo keliya ayuu u sameynayay. qaladaadka ardayga marka ay bateen, korontaduna macalinka uu ku qasban yahay inuu aad u sii kordhiyo darajooyinka sare ee halista. Marka uu macalinka uu soo gaaray wax uu cilmi baaraha uu ku dhahay haddii ardaygani uu igu dhinto adiga ayaa mas-uul ka ah, aniga waajibkeygii oo keliya ayaan gudanayaa. kadibna korontada ayuu macalinka uu ku badiyay ardaygii ilaa uu ka gaarsiiyo heerkii ugu dambeeyay ee qof uu ku dhiman karo. Inkastoo korontada been iyo jiliin ay ahayd, haddana psychologiga bani aadamka waxyaaba aad u weyn in laga fahmo ayay sabab u noqotay. qofka bani aadamka waxuu u janjeeraa amarka inuu u hoggaansamo walow qof macsuuma xitaa haddii uu dilayo. 2 u hoggaansanaanta amarka waa wax gariisi ah oo qofka gudihiisii ku dhex jiro. Natiijada laga soo saaray tijaabadani waxaa ka mid ah xaaladaha noocan oo kale ah, qofka marka uu sameynayo ficilo dadka kale halis ku ah, isaga ma uu dareemayaba in dembi uu leeyahay. wax uu isku arkaa qalad ama sax in uu keliya isaga uu gudanayo amarkiisii ahaa adeecida. qofka soo amray ayuu arkaa waxyaabahani oo dhan inuu mas-uul uu ka yahay. sidaasi darteeda burburka, dilalka, qalalaasooyinka dunida oo dhan dadka fulinaya iyaga iskuma ay arkaan in wax qalad ahba ay sameynayaan. waajibaadkoodii ahaa samey wixii lagu amro in ay gudanayaan oo keliya ayay isku arkaan. tanina waxaa laga yaabaa adiga oo dhagaysanaya si practical ah micnaha laga hadlayo in aadan fahmin. xaaladaha noocani oo kale ah ee amarna uu jiro waxyaabo dhib ahna amarka ay ka ratibmayaan, haddii labada xaalad ay wada kulmaan, maskaxda si otomaatiga amarkaas in aad fuliso ayay kugu riixaysaa. dadka in yar oo ka mid ah xaaladaha noocani oo kale ah waa kuwa ka joogsada ama iscasilaad sameeya. haddaba bani aadamka amar qaadashada ama u hoggaansanaanta shay aad ayuu ugu janjeeraa. tijaabadani iftiimisay wax badan oo ka mid ah psychologiga askarta ama dadka meel ka soo amar qaata. dood badan ayay dhalisay. dadka tijaabadani ka qayb galay maalinta iyaga shaqadoodii maadaama ay ahayd in ay daawadaan oo keliya, waxa ay sheegeen inay aad u xanuunsanayeen oo aadnay u niyad jabeen marka ardayga la ciqaabayay. sanad kadib dad tijaabada ka qayb gala ayaa waxa ay dhaheen fikirka aynu nolosha ka haysanay aad ayuu isku bedelay. adeecid darteedii waa inaanan rumaysadkeeni iyo waxyaabaha ka hor imaanaya bani aadanimadeeni waa inaanan ku dhaqaaqin. macalinka tijaabadani ka soo qayb galay ee ardayga sida daran u ciqaabayay isaguna waxa uu dhahay si kastoo ardayga aan u xanuunjinay, haddana sababta aan sidaa u sameynay ilaa iyo hadda ma fahamsani. keliya inuu jiro amar aan u soo dhaartay in aan fulinay oo keliya ayaan ogaa. haddaba qofka bani aadamka waxaa looga baahan yahay xaalad walbo inta uusan dhaqdhaqaaq samayn ka hor in su-aaluu isweydiiyo. wixii qaladaad qofka uga imaan karana waa in bilowgii
uu ka haraa. Cagsigeedii, qofka haddii go'aan kastuu iska qaato isaga oo aanan muxaasabo samayn, Qur'aanka Kariimka dad sidaasi diintoodii ka dhigtay ayuu tusaale uu ka bixiyay. Marka aakhiro la gaarana, dadka waxa ay oran doonaan, Rabbiyow, inaga dembi ma lihin. Sababtoo ah dadkii inoogu waaya aragsanaa ee madaxda inoo ahaa ama dadka culimada aan u arki jirnay ayaan raacnay, qaladka waa iyaga. Iyaga ayaana sabab u noqday in aan jidka xaqa aan ka soo dhunno. Iyaga haddii aysan jirin lahayn, waa hore ayaan inaguna waddada xaqa raaci lahayn. Tanina in aysan aakhiro cudurdaar noqon dooninna, Qur'aanka Kariimka suuradda Axzaab aayadda 66 ayuu si toos ah ugu sheegayaa. Kii amar qaatay ee adeecay iyo kan fuliyeyba tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar. Dabka dhexdiisii ayuu wejigoodii uu ku dhex gadoomi doonaa.